بسم الله الرحمن الرحيم صاحبadaan halkan ku leenahay oo isla markaasna aan ku midownay channelkeena Zucamada Official ku soo dhawaada warkeena qodobada ugu waaweyn ee aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya war murtiyeed rasmi ah oo laga soo saaray shirkii gudiyadii farsamo ee ka kala socday maamul goboleedyada dowladda federaalka iyo sidoo kale maamulka gobolka Banaadir isla markaasna ay marti gelisay xarunta kumeel gaarka u ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee Baydhabo oo war murtiyeedkii laga soo saaray iyo barnaamijkan idinku soo gudbin doona qodobada kale ee idin soo gudbin doona waxa ka mid noqonaya gudoomiyaha Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo soo saaray qoraal xasaasi ah oo uga hadlayo shirkii Baydhabo oo war murtiyeed laga soo saaray qodobada kale ee idin soo gudbinayna waxa ka mid noqonaya maalinta Jimcaha ee fooda inagu soo heysana waxa lagu wadaa in magaalada Muqdisho ay marti geliso banaanbaxyo gilgile isla markaasna looga soo horjeedo dawladda talada heesa ee nabad iyo nolol ee uu garwadeen ka yahay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo isla markaasna banaanbaxan ay soo hogaaminayaan musharaxiinta mucaaradka ee u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee Soomaaliya barnaamijkan ayaa idinku soo gudbin doona daawadayaal qodobada kale ee ku daawan doontaan warkeenana waxa ka mid noqonaya beesha caalamka oo fariin degdeg ah u dirtay madaxda Soomaalida kadib heshiiskii Baydhabo shaqaalaha dowladda federaalka Soomaaliya fasax ayaa la geliyay kadib saameyn taban oo markaasi ku soo laba kaclay cudurka COVID-19 dalkeena hooyada Soomaaliya intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii aad ku daawanaysay warkeena markaan ku soo dhawaada warkii official iyo qodobadii aad daawateen oo intaasi kasii faahfaahsan balse marka hore like saar muuqaalka oo la wadaaga saacadtaada si aan u helno saaxiibo fara badan sida adigoo kale waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan aad daawanayso subscribe inoo saar taasina wayna dhiirigelinaysaa gambaleelkana markaasi inoo taabo si aad u hesho macluumaadkeena sida ugu dhaqsiyaha badan markaana ku bilaabnay shirkii gudigii farsamada arrimaha doorashada federaalka ee ku qabsamay magaalada Baydhabo kaasi oo ay yeesheen wakiilo kala metelaya dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa heshiis buuxa lagu gaaray waxaana laga soo saaray war murtiyeedka laga soo saaray shirkan ayaa sidaan u qornaa shirka gudiga farsamada arrimaha doorashada federaalka ee ku qabsamay magaalada Baydhabo ee caasimada kumeel gaarka u ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya isla markaasna socday 10kii ilaa 16kii Febraayo 2021 waxa uu ku soo dhamaaday guul gudiga oo ka duulaya mabaadi'da aasaasiga ah ee wadar ogol isu tanaasul isqancin iyo tixgelinta xaaladda dalka ayaa si qoto dheer uga dooday qodobada caqabada ku ah fulinta heshiiskii 17 Sebtembar 2020 iyo sidoo kale duruufaha ku xeeran qabsoomida doorashooyinka dowladda federaalka Soomaaliya gudiga waxay si gaar ah diiradda u saareen dhirinta farsamada iyo sidoo kale xal u helidda qodobadan cawashada laga muujiyay in qaar ka mid ah xubnaha gudiga doorashooyinka aysan waafaqsaneyn habraacyada iyo sidoo kale shuruuciyada xubannimo ee gudiga doorashooyinka ee lagu qeexay heshiiskii 17 Sebtembar 2020 gaar ahaan inay yihiin xubno ka tirsan shaqaalaha rayidka iyo sidoo kale hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA iyo waliba hay'adaha amniga oo idil xal u helidda gudiga doorashada kuraasta Soomaaliland xaaladda gobolka Gado oo la xaliyay iyo sidoo kale adkeynta qoondada haweenka waxaana sidoo kale qodobada kale ee looga hadlay kulankan kamid ahaa jadwalka qabsoomida doorashooyinka Soomaaliya gudigu waxay xal farsamo oo goondhig u noqon kara qabsoomida doorashada ka gaareen dhammaan qodobadaas kor ku xusan waxayna madaxda golaha wada tashiga qaran u gudbiyeen soo jeedinta gudiga si ay u meel mariyaan sidoo kale gudiga farsamada arrimaha doorashadu waxay ugu baaqeen madaxda golaha wada tashiga qaran in ay shir isugu yimaadaan 18 bishan Febraayo 2021 oo ku beegan berito oo Khamiis ah gudigu waxay u mahad celinayaan madaxweynaha dowladda iyo sidoo kale shacabka reer Koonfur Galbeed soo dhaweynta iyo martigelinta gudiga farsamada gudigu waxay sidoo kale u mahad celinayaan beesha caalamka oo dadaalka joogtada ah ugu jirta sidii dalka ay uga dhici lahayd doorashada loo dhan yahay war saxaafadeedkii ka soo baxay shirkii ka soconayay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka u ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sidaas u qornaa markaana haddaynu fiirino daawadayaal wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda xilka sii haysa ee Soomaaliya ayaa soo rogtay amar hor leh iyadoo shaqaalaha dowladda ku amartay in ay guryahooda joogaan war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda ayaa waxaa lagu sheegay in shaqaalaha ay si kumeel gaar ah u hakiyaan isu imaatinka iyo xaadirintooda
waxaana sabab looga dhigay xanuunka COVID-19 oo aad u saameeyay bulshada. Shaqaalaha dowladda waa la fasaxay intooda badan iyadoo la rabo in laga fogaado xanuunka safmarka ah ee coronavirus, waxaana kaliya xafiisyada dowladda tegi doona madaxda iyo shaqaalaha aan shaqooyinka joogtada ah looga maarmayn. Dhammaan shaqaalaha dowladda ayaa waxaa la faray 6 qodob oo looga hortagayo faafitaanka COVID-19: in ay ka fogaadaan salaamida gacan qaadka ah kuna ekaadaan salaanta islaamka, in ay xirtaan afxirka maski, in haddii ay heli karaan ay gashadaan gloveska gacmaha, in ay isticmaalaan dareeraha gacmaha lagu nadiifiyo ama saabuun, in ay gacmahooda ka ilaaliyaan indhaha, sanka iyo afka inta markaasi karoonkooda uu yahay, in qofkii isku arka calaamadaha coronavirus inuu la xiriiro goobaha caafimaad kana ilaaliyo bulshada inteeda kale. Kiisaska la diiwaan geliyay